لبعض برنامجه لكن واحد مرة كوسو دوين تونا قدومية أصلا واحد حزبنا حزبية على ذكر الدول صوت كيستي ولا صوت برادعي كل الناس هي كسرنيتا حزب المدوح هاي أحنا مصلحة بدأنا حزب القومية وأي مرسوي يسأل على يوقفه إلى مالنتا يسوي ومن على سلوى بدأنا درجة سوريو بدأنا جمهورية الصومالية دكتور أحمد محمد محمود سجاله وأي مماتا بدأت بالفرس بدأت سيرنا بدأنا نرى يوم المركة ورجعت للمدة الجالسين درجات السياسة هي حالة وجالسينها وعلى هذا الصوماليين كنا نريد أكثر هذا الإنسان سوريو شاي مسرح مسلمين عبد وما زلت هذا وما زلت بسم الله مدحونا جمهورية سوماليلاند إرجلنا في وجهها قرب كونيروا حزب القومية مرتشرة في الدول منطقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كان وجود الله مرات مدينة الله لكن واحد يقول لك كذا إلى بيسيح ما صاروا والله دورها أمسنا هاي والمدينة إلى قوية كثيرة اليوم هو سوتي أي وحسكوا الديان والله اليوم يا ربنا مدة ما هو حسبي طلياني أقولها فريق الله وحسب القومية وكيف يقولها الصومال لا يفريق الله وحنا نسأل يا مطار يا رب كانها وحسب يا مكة الرئيسة ومتجر الكرواتية طليانا كاتب ومكة حيث يوم اعتنى وأقوم بيني حيثيون كانت هذه الشيء عيالي تبدأ كذا كانت هذا حسب بيني طبيعة كانت من يوم الصوم ويوم محمد كانت السحابة حسب بيني يوم كسل وهي الدخول وحسب بيني يوم كأول طبيعة كانت سنة يدعى البرزيل قول كسان الذي يوصله حسب الذي يقول الكهو وهو البرزيل حسب الذي يعمل قول كسان يتكلم مرجع يكمل ما يقول الجماعة وما يدرك وكذا إذا ما سوى يقول يقول وحكى عليه المقتنع وأحسن يسوي يوم الموجيان مريضة ما دام على مسؤول عاصمة الجولان إن الحكام يتصارعوا عن وطن مريضة أيام يقولوا إذا كان والله أنا سوق مالي تقولوا يملأ هو يمشيك الفرنقين ومستقبل الدول يلعب عليهم وحكوا معه كالصومال الرياضة إن الرياضة سوق الصومالات وتبدأ مكتب وتبدأ يمضى مريض الجوي وحمل الفاس يركب وقال لي يفوح ويبوغا هذا يقول علينا ونحسن أوكي والله يقول قلنا إلى القوة آل وفقرهم وضلت ويانا عفرايا إلى الخبور الدواء وحكملها إلى كلا فقرهم كالصومية أيسو كالزوي طريقه وايد مركب طيارات ضربها كسر معها الطيارات سيكون حاضر صوم الله وحاول وحده صومية
waxa la is-aaminka dadka waxa la wax wada nafsiga markaa dadka da'dayada ah iyo dadkii waaweynaa soo maray duruufahaadka oo duruufahaasi maskaxdooda saameeyeen waxay doonayaa shirarka ee kuhadlaqoa inaynu ku aruurno da'da yar ee dhallinyaradu inay ka baxaan tababarada dagaalada iyo raadkii maskaxda ay dagaalada ku sameeyeen oo ay noqdaan qaar iyagu iskaashada ka baxan oo qolnaanta wax isku darsadaan maskaxdooda iyo muruqooda iyo hantidoodaba baraynaa garbeen shirkan wuxuu dhafurmuri doonaa siduu u abuuri lahaa iskaashiga isku kalsoonida walaaltinimada iyo wax wadaanaashaha dhalinyarada Soomaaliland oo dhan iyagoo horumar ka noqonaya garabka dhalinyarada guuleed waxaa kaloo darsi doonaa mashkaradda dhulka maanta Soomaaliland dhibaatada ugu weyn waxaa ka mid ah mashkaradda dhulka jagada hargeysa ku taalla ama burco ama boorame maanta waxay ka qaadsan tahay New York iyo Japan Tokyo macluumaad mahadnima mutajaaladan gaanada marbaata ay soo socotaa waana su'aal baahan inaynu aad laba dhulka ilaahay ku yawasiiyey dhulka waxaa wadane kamitee meydka ah iyo kuwa soo dhalan doona boqolaalka sane soo socda dadkeenu maanta talinayo waxay u baahanahay in dhulka loo qaybiyo oo la wada haado kuwa dhalan doona boqolaalka sano iyo kamitee meydkiiba dhulaaha dhibaatooyinka ay haysto waxaa ka mid ah in maanta xabaalaha ku loo iibiyo dhulkii ilaahay meydka xaqa u siiyey ayaa magaalooyinka maanta lacag aan weliba caqligal ahayn nin oranaya habeegay dhulka ilaahay baa dadka siiyey waa la wada leeyahay kuwa dhintay kuwa nool iyo kuwa soo socda waxaynu u baahannahay inaynu helo tala dhulka lagu wada hado dhibaatooyinka dhalinyarada hortaagan waxaa ka mid a ee maanta haysta ninka soddon jirka iyo inanta 20 jirka ee jaamacadda dhameeyey ee mushahaaro qaata mushahaaradooda gurigeeda kama bixi karto dhulka la iibsanaya dhulka isarcaama intay shaqaynayaan oo dhan mushahaaradooda gaari mayso waxaa gabadha kalkeenaya marka dhulka waa waxaan idhahnaa intii lacag haysataa ha dhigto manacabdoonaaatooe aynu u baahannahay inaynu ka tagan mustaqbalka dalka dhulka inaynu qaybsano in beero wax laga soo saaro in la beero in kayda in u qaybsanaa loo baahan meelfada dhibaatada haysata ay ku jira wareeraan ee u baahan in lagala taliyo oo isku tago waxaa ka mid a mashkaladooda ninka baayirka maanta magaalooyinka oogay gurigiisa ma seexdo 24 saacad loo la eryanaya weliba waxaa lagu qasbaya oo aan sharci ahayn iyo waxaa loo qoray oo lagu talagalo jiray inuu saexdo waxay u baahan yihiin gurmud iyo tala qaran oo laga rabo daayirka maanta ay soo timid inay xaqeeda bilowdo oo arrin ay mucaan u heshiin ku loomayso tan kale ku xigtaa waxaa weeye shaqa la'aanta si aynu uga baxdo in dadka lacagta ilaahay uga ku siiyey is-aaminaa iyadoo dowladdana tilmaanteeda la raacayo oo maxay doqonnimooyinka inaga dhacay waxaa ka mid a haddaynu Somaliland nahay dhixiseero dambeeyey doqonnimooyinka inaga dhacay waxaa ka mid a waxaynu nahay dalka warshadii sibirka samaysay kari waayey ee maanta dalka jaarkooda ah ka soo iibsaya sibir qaaliya ee waddadii laga leedahayna aynu samaynaan baabuurta 40 taniya ay burburiyeen ee aan laadin waxay ku samaysan weyne dadkeedii hantilayaasha ay waaweynaa ayaa is-aamini kari waayey oo isu toosan kari waayey oo samayn kari waayey warshadii sibirka tanaday isku aamin lahaayeen ama inay mustaqbalka isku aamin lahayd ay wax isku darsan lahayd ay ku dhisan lahayd ay ku fordaan warfayno Somaliland horudooda shirkaani maanta waxaa ka mid ah oo ku soo gabagabeynaya waxaa jirta Soomaali waxaa tidhaahdaa ninkii ilaahay adduunyada dabcad dadkiisu siiya taa waxaa marka fugay dalalka Asia waxaa jirtay 4 sano dambeeyey fikrad oranaysa dalmada hadlayay oo bedesha qaayana haddii kale waa naajoore ilaahayna quraankiisu ku yidhi annaga iyo idinka wada asaaqi doonaa ee cunta hadayna maanta
adigii suuqaya Germany oo 1 milyan ah markaa aragtida waatanka sida loo socda inaan u jirin dadka loo shaqeeyo Asia China oo bilyan iyo bara iyo India oo bilyan Afrika waxay noqdeen hormoodkii science iyo aqoonta iyo teknolojiyada oo maanta dhaqtarada ugu sarreeya iyo injineerada ugu sarreeya teknolojiyadu ee Maraykanka ka shaqeeya waa dayar ama watanjir markaa dadka iyo quwadda Afrika ay Soomaaliya intay koobataa dhalinyarada maanta loo wargalayo ee loo calacalayo ee Amerika Soomaaliya ka dhutay ee isla mustaqbalka madow meel dad iyo aqoon joogto adduunyo taalayo hormarinaya taasina waxay u baahan dhalinyarada maanta la ku shaqeysaa inay keento caqligii iyo fikirkii ay kaga bixiyaan dhibaatooyinka taagan ee shaqada soo tahay sida loo kordhiyo waxaan soo koobayaa waa qodobada ay ka hadlo iyadoo la soo koobayo sheekada sheekada waxaa jira geela maro marka xoolo soo aqoon ninka ceelku qotay laba qodee ayuu doonay walaa ilaaha shaqo wuxuu qabsan waa geela kada waa la sugaada waa geela maro ka aqalay kada ayuu soo qowlay marka reerku guuray ee oo qorma meel sidito ee ismada geela kurto ayuu awti soo hormarka geela maro markaas Allah ta'ala ta'ala وأنا ما أشوفه وأنا سوي هذا قد ما نسيبه الله وحده الله كذا ما كقولنا نسوي ما هذا وهذا نفتحه وهذا ما شو تقاليده وأنا كذا أنا تصار تبغى كذا أشيل كذا سواء أبداني سكين أو أول كذا أيوب مفا وهذا أول كذا نفتحه وأنا يشيل فكان ما مالي بروح كعلى البري أفضل في جنبه وبلاد الجو وجود صبري وتبتيك المرور ما له حسبي ولا المرور وحسب النيرون وحسب لا وبيتك المرور أنا كنت معي الجماعة سري أولتي لكن كل مالاتي هدوء إلى مدرسة تدي فلان كسرينا توري إلى مرام سهلا لا بقول تقول هذه الرقعة وتقول وقول وقولك تقول هذه وسطه تقول عشان الله صدق الله يا رب وهاي وحبك نبض عليه فريق إلى مرام أنا اللي عارف تكلم لا يقول هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحمد لله أحمد محمد